السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة مهمة كان ودير وحاصل لقوا بوغان دبنك مشغولك بينتا The Distraction Trap مصيدة التشتت. بوغان مهمة وحاقرتي هوينيدان لقوا مقعب فرانسيس بوث أو كتخصصتي علم قبول شدا وحاصيدر ومركن أيضا كهالين خبرة ديدا صحافة مدبدا أي أهد صحافيد ورقيسة عانكا سيدا تيليغراف يدا جارديان تاسو كينيسي إن أي براه بولشدا إسكاد حفردو ساعة بدن أيضا la fiirinayo arrinkan inuu hawsheeda ahaa waana dhibana ka soo kabsaday xaaladaas aan inteena badan ka sheeganayna maanta maqnaanta in aan feejignaantii aan weynay in aanan joogin maalinteena oo dhan inaan mobilka ku foorarno baraarugii maskaxad in aan weynay waxay buugaan nugula wadaagaysaa sida ay ugu dhacday dabinka maqnaanta iyo sida ay uga baxday xaaladaas distractionka waana buug runtii gebi ahaanba eber ka soo bilaabayo aragtidaada ku aadan ku mashquulsanaanta baraha bulshada iyo mobilka haddaba aan guda galno buugeenan muhiimka marka koobaad qeexitaanka maqnaanta bixitaanka xaaladaas lagu magacaabo distractionka ama tashatudka lagu magacaabo haddaba markaan qeexayna xaaladan waa ka leexashada wax aad ku guda jirtay kadibna feejignaantaadii iyo joogitaankaadii maskaxeed aad u wareejiso shay kale sida tusaale ahaan qof muuqaal daawanayo kadibna hoos u degay si uu kommentiyada u akhriyo qofkaas baraarugiisa wuxuu ahaa daawashada muuqaalka laakiin hal mar ayuu ka leexiyay una wareejiyay kommentiyada asagoo aaminsan in uu labadaba isku wadi karo laakiin waa dhaan dabangaale la iskuma wadi karo hal mar iyo sidoo kale tusaale ahaan qof ciyaar daawanayay hadduu garoon ka daawanayay iyo sidoo kale hadduu TV ka daawanayay isla waqtigaasna fariimo qoraal ah diraayo sidoo kale tusaale ahaan qof la hadlayo qof kale laakiin maqle cod fariin u soo dhacday notificationka kadibna feejignaantiisa u wareejiyay hal mar fariintaas codkaas uu maqlay hee maxaa tiri ku soo celi asagoo isku dayay sidoo kale in uu u muujiyo in uuna maqnayn laakiin sidoo kale la iskuma wadi karo mashquulka maanta waxaa sabab u ah shaki la'aan mobilkaas aan u adeegsanayna baraha bulshada inta aan muuqaalkan ku guda jirno saddexdan eray ee isku midka ayaan uun mid adeegsan doonaa waxaa laga yaabaa inaad maqasho muuqaalkan intaan ku guda jirno annagoo leh distractionka mashquulka beenta ah mashquulka ama tashatud waa isku micno waxaan u adeegsanayna kaliya waa soo dhoweynta micnaha waxay ku bilaabaysaa mowqif sawirasho ah habeen roob khafiifa da'ayay ayaad fadhiga waqti kula qaadanaysay qof aad u jeceshahay ayadoo sheekadu meel fiican idiin marayso ayaa waxaa soo dhacay taleefankaadoo saarnaa miis aanan kaa fogayn waad istaagtay si aad taleefanka u soo qabato halow kadibna waxaad bilowday sheeko iyo hadal haa maxaa tiri ku soo celi inta aadan mobilka iska dhigin ayaad aragtay fariin WhatsApp soo dhacday fariin aanan wax ahmiyad lahayn oo xitaa aad dib u dhigi karto fariintaas ayaad furtay kadibna waxaad yara gashay Google si aad su'aal uga jawaabto adigoo la iska xir haddaba su'aal aan ku weydiiyo sheekadii aad kula jirtay qofkaas aad jeceshay warkeeda aaway xaalkeed huwa sidee xagii ku dambeysay xaguu aaday waa sida xitaa ay ku leedahay xaguu aaday xasuustii habeenkaas aad ka tagi lahaydeen qofkaas kula joogo warkiisa aaway muu baaba'ay muu qarsoomay ma ogtahay macluumadan in ku mashquulka baraha bulshada iyo mobilka si degdeg ah oo aadan filaynin ay u bedeli karaan habdhaqankaada shakhsiyadeed waxaa laga yaabaa inaad is aragto adigoo samaynayo wax xitaa aad ka xishoonayso waxay leedahay qoraayada buugu annaga ayaa mas'uul ka ah burburinta xiriirkeenna iskuna furayno walwal aan ka maaranno sida in aan isku qancinno kale tusaale ahaan hal mar howlo badan inaan isla qaban karno ka jawaabidda fariimo qoraala waqti aan taleefan ku hadlayno waana waxa ugu xun ee ay macquulka tahay inuu qofku sameeyo taasoo keenayso in aan labadaas shayba seegno qofkaana lama hadli karno sidoo kale qoraal la isku halayn karna ma diri karno fasal waxyaabo aan weynay fasalkan waxay nugula wadaagaysaa natiijada lagu riiqmay aan ka dhaxalnay maqnaanta ku mashquulsanaantaas aan ku mashquulsanahay baraha bulshada iyo mobilka waxayna seejiyeen awoodo dabiici ilaahay bini'aadamka ku abuuray shay fidri ah waxyaabo waagii hore loo arkay shay ka mid ah qofnimada shakhsiga markaad ogaateen inaan weynay maanta runtii waad nixi doontaa su'aal aan ku weydiiyo inta aanan kula wadaagin qodobadan muhiimka ah ee aan ka dhaxalnay maqnaantaas aan maqannahay weligaa ma dareentay inaad ilowday sida loo hadlo ma dareentay ama ma isweydiisay in xitaa af Soomaaliga aad ilowday in aadan dad la sheekaysan karin qof indhihiisa in aadan fiirin karin haddii ay jawaabtaadu tahay haa isoo raac mar kale marka ugu horeyso aan kula wadaaga liiska waxyaabahaas aan weynay mid walba faahfaahin dheeraad ayaan ka bixin doonaa
maqnaanta iyo ku mashquulsanaanta beenta ee baraha bulshada iyo moobilka waxaan ka dhaxalnay qodobadan soo socdo waxaad ogaataa in aan faahfaahin doono laakiin aan ku yara dulmaro waxaan ka dhaxalnay wax akhrin la'aan la keli noqoshada nafteenna xusuusta hurdada markaan gaadiidka saaranay wax aan samayn lahayn oon kula wadaagi doono curinta dhegaysiga barashada xiriirka ayaan weynay haddaba mudanayaal iyo marwooyin qodobadaas aan soo yara sheegnay aan isdul istaagno mid walbana aan faahfaahin dheeraada ka bixinno akhrinta waxay ku bilaabaysaa qoraayada buugga su'aal ah ma ku haysataa culays in aadan waxba akhrin karin ma kugu adagtahay in xitaa aad akhrisa hal bog waxay soo qaadanaysaa daraasad uu sameeyey khabiir isticmaalka badan ee internetka daneeya haddaba ninkan wuxuu ku soo koobayay jumlo ah internetka waxba kama akhrino ee waan gadgadina browsing yacni haddii aad tahay xitaa dadka daneeya in ay maqaallo ama xitaa buugaagta PDF-ka internetka ka akhriyaan wuxuu ku leeyahay internetka waxba lagama akhriyo sababtoo ah uma adkaysan kartid waxaad rabtaa inaad furto dhinaca kale muuqaaladaas shoortiga gaagaaban ee degdega waxaan ka qaadaynaa sabar la'aan iyo degdeg umana adkaysan karna samaynta shay 5 daqiiqo dadaal u baahan waxay soo qaadanaysaa oraa ah markaad buug akhrinayso xitaa buuggaas hadduu 1000 warqadood ka kooban yahay waxaa shaki la'aana mar uun inaad dhammaynayso laakiin internetka ma dhammayn kartaa maanta haddaad soo qaadato mobile kadibna aad TikTok furto ma gaari kartaa meesha ugu dambaysa muuqaalka ugu dambeeya ma gaari kartaa saacadda qiyaam ayaa kugu istaagay ama adaaba qolfoof noqon saacadda qiyaam intaana la gaarin sidoo kale aan kula wadaago la keli noqoshada nafteenna waa waxyaabaha aan weynay maanta mid annaga naga mid ah haddii ay fikrad ku soo dhacdo ama uu tijaabo arko kuma ekaada in uu tijaabadaas asaga ka shakhsi ahaan uu dhadhamiyo dareema macaankeeda iyo qaraarkeeda tijaabo walba dhinac faa'iido ayay leedahay bal wuxuu u ordaa in uu soo boost gareeyo in uu Facebook ku soo qoro inuu meel kale ku soo qoro sida tusaalaan xitaa qof booqday meel qadiim loo dalxiis taga taariikhi ah intii uu si dhab u arki lahaa dhadhamin laha tijaabadaas wuxuu soo kala baxsadaa moobilka si uu u diiwaan geliyo asagoona noolaanaynin tijaabada dhabta ee meeshaas uu tagay maanta casrigan aan noole markii laga hadlay waxaa lagu tilmaamay in aan weynay qiimaha laxdada qiimaha daqiiqada waqtiga aan joogno markaan meel tagno ma dhadhamino arrinkaas markii laga soo tago maanta saacadaha ugu badan waan maqannahay moobilka ayaan ku mashquulsannahay xitaa ma helno 10 daqiiqo oo aan u dulqaadanno dareenka caajiska in aanan waxba haynin mar ayaan xitaa muuqaal ka samaynay inaad kursi iskaga fadhidood caajisan tahay oo iska halaqoonayso xitaa maanta shay xun ma ahan noloshana maanta waxay noqotay mar aan hawl hayno ama hurudno intii kale ee aan baraarugsanaan lahayn moobilka ayaan isku mashquulinaa waxay leedahay jiritaanka saacado ama waqti aad naftaada la gooni noqonayso waa farqiga u dhaxeeyo in aad tahay qof mug leh iyo qof eber ah markii la leeyahay naftaada la keli noqo xitaa ma ahan inaad fikirayso ama aad wax kala samaynayso ama aad wax alifayso ma ahan waa inaadan waxba haynin halkaas iska fariiso ama iska joog iska soco afkaar ayaa kugu soo dhici xusuusta oo aan aaminsanahay qodobkan inuu yahay qodobka ugu muhiimsan ugu yaraan sida aniga ka shakhsiyan aan aaminsanahay joogitaanka iyo baraarugsanaanta waa furaha xusuus xooggan iyo fahan qoto dheer arrinkan ma ogtahay marka aan anagoo maqan hawlo badan isla qabanayno sida qof dad la hadlaayo isla waqtigaasna taleefanka isticmaalayo waxaa dhici cagsiga waxaad noqonaysaa qof aanan mug lahayn khafiif aad iyo aad u fudud tusaale ayayna siinaysaa waxay leedahay 2 nin ayaa aaday garoon ciyaar lagu daawanayay waxayna fariisteen kuraasta ugu horeysa ee ciyaartoyda u dhow labadaas nin mid ayaa la soo kala baxay moobilka daqiiqad walbana sawir ayuu qaadaa muuqaal ayuu diraa cod ayuu dad ayuu WhatsApp-ka kala hadlayaa ama meelo kale ayuu ku sii faafinayaa halka midka kalena uu 90kaas daqiiqo wax aanan ciyaartaahin una ku mashquulsanayn ciyaartan waa tusaale waxa la mid ah hawl kastoo la qabanayo waxay leedahay ciyaarta markay dhamaato labadaas qof keebaa hayso xusuus xooggan oo ku aadan dhacdooyinka garoonka ka dhacay markay muddo ka soo wareegato bil ama aan dhahna ka badan keebaa haysto xusuus dhab ah oo ciyaartaas ku aadan shaki la'aan ninka ama qofkaas 90ka daqiiqo ciyaarta daawanayay halka midka kale uuna wax xusuus la sheega ka haynin ciyaartaas sababta ma uuna joogin waxaa muhiim ah in aan ogaano haddaba wax ay xusuustu tahay xusuusta waxay u qaybinaysaa 2 qaybood xusuus dheer iyo xusuus gaaban oo ay iyada ku magacaabayso xusuusta shaqaynayso haddaba si aad xusuus u samayso shay maskaxdaada galo waxa hadda kugu dhacayo ee aad la kulmayso waxay ku xaroonayaan xusuusta dheer si markaad u baahato aad ugu yeerto laakiin maanta markaan daawano 5 daqiiqo gudaheed tobaneeyo muuqaalo kala duwan tobaneeyo shay oo kala duwan waxaa buuxsamaya xusuusta gaaban arrin keenayo in aan wax macluumaad aanan kaydin karin sidii falaash buuxsamay oo kale arrinkan wuxuu saameynayaa awoodaheenna dhinaca barashada fikirkeenna xitaa waxaad noqonaysaa sida iyada ku leedahay
qof khafiif aad u fudud iska qoslaayo wax kale aanan haynin waxaad noqonaysaa lagarooni hurdada su'aal haddaan ku weydiiyo ma aragtay in hurdadaada dhaawac weyn gaaray sanadadii u dambeeyey adigoo shaqo leh in xitaa aad habeenkii seexan karin waxay leedahay macluumo ah 80% dadka maanta waxay mobaylada ka seexdaan ayagoo mobaylada internetka ay ku xiran yihiin sida qofku in uu bajiifaba qol kun albaab leh cid walbana iska soo geli karta qofkaas xaaladiisa siday noqon kartaa hurdo noocee ah ayuu dhadhamin karaa waxaa ka sii daran in dad badan ay ku soo kacaan codka notificationka kadibna ay mobaylada isticmaalaan maanta dadka ama aan dhahna zamankan waa waqtiga ugu badan ee ay dadku dhafarka iyo hurdo la'aanta ka sheeganayaan waxaana sabab u ah mobaylkaas sidaas darteed waxaa lagu taliyaa in mobaylka aad badhigtaba bannaanka qolkaas aad seexanayso ama aadba iska damiso ka hor saacado inta aadan seexanin waxaa jira hormoon muhiim lagu magacaabo melatonin oo ah kan sababtoo in aad seexato melatoninkana wuxuu imaadaa ama wuxuu ku imaadaa keliya meel mugdi ah melatoninka meel mugdi keliya ayuu ku imaadaa cadowga koobaad ee melatoninkanna waa iftiinka gaar ahaan iftiinka shaashadaha ka soo baxaya waana arrinka ay hurdada kaaga imaan laadahay waqti aad mobaylka isticmaalayso sababtoo ah hormoonkaas hurdada keeni lahaa maba imaanayo weligaa ma isweydiisa markaad farmashi tagto ee uu takhtarka ku siiyo ama ninka saydaliga uu ku siiyo farmasiga joogo daawada ah melatoninka ee aad ku seexanayso oo aad leedahay waxaad isiisaa kaniinka hurdada muxuu yahay haddaba yani ma wax ku suuxinaya maan waa hormoonkaas melatoninka haddaba si ay hurdo kaaga imaado waxaad u baahan tahay meel mugdi 100% inta aadan seexanina ka hor saacado in mobaylkaadan isticmaalin shaashad aadan fiirinin subxaanallah rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo kii dhihi jiray markaad seexanaysaan iska damiya iftiinada albaabadana xirta hurda idin ka imaan sidoo kale waxyaabaha aan weynay isu gudubka waxay ku bilaabaysaa cadkan markaan tareen fuulo naftirkeeda ay ka hadlaysaa waxay leedahay markaan tareen fuulo afka ayaan gacanta saartaa markaan arka ayay leedahay qof walba inuu shaashada sir ku fooraro waayadii hore dadku aad ay u jeclaayeen inay tareen raacaan ama xitaa ay safraan ama gaari caadi ay raacaan si ay u daawadaan caalamka socda bannaanka aaladda siraad ku dhex jirto halkii aan xoogaa raaxo iyo deganaan dareemi lahayn fikir waxyaabo badan ay nagu soo dhici lahaayeen waxaan mar kale madax iskugu tuurnaa caalamkaas aadka u buuqa badan waa markaad mobaylka isticmaalayso waa isticmaalka mobaylka sidoo kale waxyaabaha aan weyne waxaa ka mid ah curinta al-ibdaac curinta iyo samaynta shay cusub fikir cusub qaab cusub xeelad cusub waa waxa bini aadamka ka soocayo inta geesaha leh xoolaha yacni waa shay muujinaya inaadan geesa lahayn afkaarta waaweyn ee wax bedelo uma imaadaan qof 24 saac maskaxdiisu ay mashquul tahay distractionka wuxuu burburiyaa wax walba keenayo in aad si mugla u fikirto sababtoo ah maskaxdaada maba siisid aslan fursad ay ku fikirto fursad ay ku nasato waad aragtaan bulshada TikTok inay yihiin kuwa ugu liito dhinaca curinta caalamka internetka dhammaantood way isku daydaan wax curin la sheega meeshas ma taalo dadka qaar markii laga soo yara tago hal filter hal cod hal qosol dhammaantood hal shay ay ku soo celceliyaan waana dadka ugu badan ee mobaylka isticmaala ma og tahay in xiriir uu ka dhaxeeyo caajiska aad dareemayso markii aadan waxba haynin iyo ibdaaca ama yani curinta xiriir ayaa ka dhaxeeya inta badan aaladaha aan maanta isticmaalayna waxyaabahan waxay imaadeen kadib qof xaaladaas oo kale dareemayay maskaxdaada xal ayay raadin laakiin markaad maskaxdaada 24 saac ay mashquulsan tahay inaad hurdo ama aad mobaylka ku mashquulsan tahay afkaarba kuuma imaanaysa aslan sidoo kale waxyaabaha aan weynay waxaa ka mid ah dhageysiga dareenka ugu adag ma taqaanan maanta adigoo qof sheeka u hayo in uu taleefanka furo kadibna uu dhaho haahey yaa maxaa tiri qosol beena si uu kugu muujiyo in uu kula socdo dadka waagii hore sidan ma ayna ahayn sidoo kale waxyaabaha aan weynay ee hoosta u dhacay waxaa ka mid ah barashada sida uu buug leeyahay maanta macallimiin badan ayaa ka sheeganaya maqnaanta ardayda ma ahan inay fasalada ka maqan yihiin ee waa maskax ahaan in ay maqan yihiin ma joogaan maanta ardayda inta badan taleefanadooda ayay fasalada ama qaacooyinka muxaadaraadka la galaan waadna qiyaasi kartaa natiijada ka dhalanayso arday mobayl isticmaalayo in uuna la soconin xusuusnayna macallinka waxa uu sheegayo wuu maqan yahay waxaa jira erey maanta aad loo isticmaalo ah jaamici ummi ah maanta zamankan hanoo leh nasiib xumo waa waqtiga kaliya aad arkayso qof leh shahaado jaamacadeed ayaan wataa ama jaamacad ayaan soo dhameeyey laakiin aad isleedahay waaba ummi kaliya wax qori karo waxna akhrin karo ma joogo
sidoo kale waxyaabaha aan weynay waxaa ka mid ah xiriirka in aan weynay xiriirka dadka nagala dhaxeeyo ama xiriirka dadka nagala dhaxeeyo uu yahay mid aanan tayo lahayn shaki kuma jiro dadku maanta fariimo ayay ku wada xiriiraan kaliya fariimuhuna ruux ma lahan waxaa laga yaabaa qof sanad xiriir inuu idinka dhaxeeyo laakiin kaliya fariimaad isu dirtaan fariimahaas ma muujin karaan dareenka dhabta qodobkan waxay soo qaadanaysaa tijaabada nin ku soo gubtay maqnaanta xaaladaas distractionka wuxuu leeyahay markaan iska daayay waxaan dhadhamiyay nolol degan waxa ugu horeeya ee aan arkayna waa in aanan waqtiga loolan kula jirin wax walba inay iska degan yihiin noloshu tartiib inay u socoto waxaan iga yaraaday ayuu leeyahay walwalka murugta daqiiqad walba in aan u malaynayay inay waxay dhaafayaan haddii aan moobilka wax yar ka yara fogahay laakiin hadda waan socon karaa waan fadhin karaa waan noolahay noloshayda way degan tahay su'aal aan ku weydiiyo daawade muxuu waqtiga maanta xawli ugu socdaa 2022 haddii bilaabanaysay maxaa keenay in aan aragno sanadkii u dhammaaday bil maxaa isbedelay marka koobaad bishu waa bishii sanadku waa sanadkii isbuuc saacad daqiiq wax isbedelay malaan maalinku ilaahay koonkan abuuray ilaa hadda wax walba isma bedelin laakiin waa wax aan samaynayno waqtiga inta uu socdo wax kalena ma ahan waa in aad mashquulsan tahay waxaad isbarbar dhigtaa qof muuqaalo tiktok qosole daawanaya iyo qof saacad xabsi a galay saacaddu waa isla saacad laakiin kan ma dareemayo midkaana waxay la tahay bil haddaba waxa keenayo in waqtiga uu degdeg ku socdo waa in aan iska mashquulsannahay waxbana aanan kala ogeyn nasiib xumo adaba buugu wuxuu ku leeyahay markaad aragtay maqnaanta dhibkeeda waxaad u baahan tahay in aad bilowda qaadidda tallaabadii ugu horreysay ee aad noloshaada dib u soo ceshanaysa noloshaada farahaada ayay ka baxday cid kale ayaa maamusho tiktok facebook ayaa maamulo adima maamushid moobilka ayaa ku maamulo tallaabada ugu horreysana waa in aad yarayso ani kuma lihi iska wada jooji ee yaree saacado u samayso waqti goonihood soo gasho sidoo kale cinwaankan jaajar garee sida inaad wax jaajar garaynayso kale sida moobilka loo jaajar gareeyo kale haddii waqtiga aad soo jeedo oo dhan aad ku bixinayso mashquulsanaan aad ku bixinayso daawashada muuqaalada degdega aad ku bixinayso waqtiga kalena aad hurdo aadan helaynin daqiiqad aad caqligaada dib ugu shido yacni xaalkaadu ma sahlanaanay wuxuuna u ekaanaya xaalku sidii bateri dhammaanayo kale ma ogid waqtiga uu kaa dami doono haddaba waxaad u baahan tahay istaraatiijiyad dhab ah in aad ka nasato mashquulkaas badan ee aadan u baahnayn waxaa jira jumlo soo koobayso wax walba runtii istaraatiijiyad cadna aad ka dhigan karto ah hal shay un waaxid inaad samayso haddii aad soco haddii aad wax akhrinayso wax akhri xitaa moobilka naftirkiisa haddii aad qof la hadlaysa keliya qofkaas la hadal haddii aad muuqaal daawanayso muuqaalka daawo wax walba markaad dhammayso shayga kale u gudub adigoo muuqaal daawanayo comment akhrinin haddaba muxuu arrinkan muhiim u yahay in aan hal shay samayno ama inaan maqnaantaas xaaladaas distractionka aan ka baxno kow jirkaada ayaa nasanaya xitaa wax kale intaan la gaarin nasiino jir ahneed ayaad helaysaa caqligaada wuxuu diiradda saaraya shay kaloo muhiim ah waxaad dareemaysaa deganaan iyo xasilooni buuxdo waxaana kugu soo dhici afkaar badanoo cusub sidoo kale waxaa kaa bixi daalkan aad iska daalan tahay oo aadan aqoonin meeluu ka imaaday waxaad dareemi nolol iska degan oo dhadhan leh ugu dambayn waxaan soo gaarnay gabagabadii xalaqadan aan uga hadalnay buuggaas dabinka mashquulka dabinka maqnaanta beenta amaanta haddii aad ilaa hadda ila socoto codkan aad maqlayso ii sheeg commentiga igu xasuusi waxaad dhahdaa codkii ugu dambeeyey waan maqlaayay taasoo ka dhigan inaad xalaqadan dhammaysay waxaan rajaynayaa insha allah buuggan iyo mawaadiicda arrinkan aan uga hadlayno dhibaatada moobilka adeegsiga badan iyo baraha bulshada qofka inuu iska dhex fadhiya maalintiisa oo dhan in arrinkan uu noqon doono bilowga inaad ka xorowdo ku dheganaanta moobilka iyo baraha bulshada xalaqadan halkan ay ku eg tahay commentigaada like inaad saarto dad kale si uu sii gaaro waa mid muhiim ah ha iga hilmaamina sidoo kale ducooyinkiina wanaagsan insha allah ilaahay noo aqbali xalaqadan intaanay ku eg tahay waa aniga cumar inshaar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh